kulantii wacan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi aan la yeelanayno wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. wasiir soo dhawow waxaan rabnaa inaan wax ka weydiino wasaaradda warfaafinta sida uga warqabto horinta dagaal beeleedyada wararka la xiriira ama faafinta. walaashay aad u mahadsan tahay Farxiyo adiga iyo tiimkaaga. marka hore waa idinku hambalyeynaya shaqada wanaagsan ee aad haysaan iyo sida aad runtii tusaalaha wanaagsan ugu tihiin saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee saxafiyiinta ah. intaas ka soo koob runtii arrinta aad xustay ee ku saabsan baraha bulshada iyo saameynta ay ku leeyihiin horinta colaadaha aad baan ula soconaa. muddooyinkii dambana si gaar ah isugu haynay waxaan aaminsanahay in laba dhinacba ay leedahay. warbaahinta bulshada marka la yiraahdo dabcan waa aalad la isticmaalo cid isticmaalaysa inay ku xiran tahay qaybo badan oo kamid ah oo wax wanaagsan lagu faafiyo oo fariimo qabyaalada ka soo horjeeda iyo dagaalada oo lagu faafiyo way jiraan haday culimada tahay haday dadka wax garta tahay haday saxafiyiinta tahay. waxaa runtii laakiin sida aad ogtahay xumaanta iyo samaanta markasta markay tartamayaan dadku waxay u badan yihiin dareenkooda dhibaatada dadka badan soo jiidata. marka runtii dad wax badan oo xun ku faafiya ayaa jira oo qabyaalada dhibaato badan ku faafiya. waxaan aaminsanahay in xumaantii markii hore dadku goodaha hoostooda ay la joogeen inay hadda access ay u helaan ay dad badan ku gaarsiiyaan. marka arrintaasi waa arrin culayskeeda leh, waa arrin walwal badan ugu haysa, waana arrin aan ku mashquulsanahay inaan wax badan ka qabano insha Allah. qaybo kamid ah baraha bulshada Soomaalida inta ugu badan qabyaalada lagu faafiyaa ma jiraan qorshayaal ay ka leeyihiin in akoonadaas wax laga qabto ama si kale bulshada loogu wacyigeliyo? Absolutely. horta sidaad ogtahay waxyaabahan sida guud kicinta la yiraahdo muxuu ahaa dadka in rabshad lagu abaabulo waa wax ka soo horjeeda caalamiyan qawaaniinta jirta oo la isla aqoonsan yahay oo dhan. waa wax ka soo horjeeda sharciyada Soomaaliya, waa wax ka soo horjeeda sharciyada ay leeyihiin baraha bulshada laftirkooda. marka annaga arrimahaas oo dhan anagoo ka faa'iideysanayna sidoo kalena aragnay runtii waxyaabihii muddooyinka dambe la faafiyay oo aad ogtahay dad muxuu ahaa la dilayo iyo dad meeyda iyo kuwa la dhaawacayo iyo kuwa dhaawaca iyo maxaabiis iyo dad xuquuqdooda siyaabo kala duwan loogu xadgudbayo. markaan aragnay dawlad ahaan waxaan ka yeelanay siyaasado iyo aragtiyo cadcad. dhawaan insha Allah tacaala waxaad arki doontaan tilaabooyin cusub oo culus oo arrintaas aan ugu hortagayno. horana runtii tilaabooyin aan u qaadnay ayaa jira bara badan oo bulsho oo sidaas darteed loo xiray oo loo mamnuucay jira fara la xiriira kicin. hadda rabshadihii ugu dambeeyay oo dhacayna waxaan aaminsanahay in qaybta ugu weyn ay ku lahaayeen dad qayr mas'uula oo baraha bulshada isticmaalay oo muuqaalo naxdin leh soo geliyay oo diinta islaamka ka fog oo akhlaaqda ka fog oo dhaqanka ka fog. waxyaabaha hadda mararka qaarkood dagaalada soo nooleeyana waxaan banaaminsanahay dadka Soomaalidu waa isdili jireen. waxa ugu weyn ee hadda ku cusub ee colaadaha kor u sii qaaday waa isticmaalka baraha bulshada oo sida qaldan loo isticmaalayo. waa in dad maaragtay muxuu ahaa aan garanaynin waxay ku hadlayaan, dad aan mas'uul ahayn, dad aan shuruucda aqoonin, dad aan aqoon lahayn inay awood u yeesheen inay maaragtay ay fariimahoodii xumaa gudbiyaan dadka ku abaabulaan. marka haddii ay noqon lahayd baraha bulshada in la xiro waa qayb kamid ah, laakiin talaabooyin kale oo ka waaweyn ayaa noo qorshaysan oo ay kamid tahay runtii dadka dambiyadaas ku kacaya in sharciga lala tiigsado laftirkooda oo aan looga xiran in baraha laga xiro. waxaa jira war hore dawladda federaalka ay u shaacisay oo la xiriira in Telegramka oo lagu soo gudbiyay muuqaal anshax xumo iyo kuwa argagax lehba in la xiri doono weli wuu shaqeeyaa. maxaa kale horta Telegramku sidoo kale waa aalad ballaaran. annagu kuwan ka hadlayna waxay ahayd kuwii jiray oo la yaqaanay markaas, ama ha noqdeen kuwa khawaarijta ay isticmaalaysay ama ha noqdeen kuwo falal anshax xumaa oo la yaqaanay oo magacyo lahaa. kuwaas runtii waan xirnay oo waa baabi'inay. laakiin de waa aalad furan oo markasta dadku ay magacyo cusub ku samaysan karaan haddii argagixiso tahay, hadday dadka anshax xumada sameeya tahay. laakiin markasta oo aan aragno oo ay soo kordhaan waa xirnaa. ilaa hadda marka la isku geeyo Telegram iyo TikTok iyo Facebook wax ka badan 25,000 oo account ayaan xirnay sanad iyo barkii labadii sano ee la soo dhaafay oo dhamaantood ama anshax xumo loo isticmaalay ama kicin loo isticmaalay ama argagixiso loo isticmaalay. marka laakiin ma la samaysan karaa, waa la samaysan karaa oo qofku hadduu intuu magaca bedesho ayuu samaysan karaa. su'aal ahaan argagixisada maalin kasta waxay sameeyaan wax kun gaaray ayay sameeyaan, haddana waa la burburiyaa. kuwa anshax xumida sameeya sidaas oo kale waa la burburiyaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan ku guuleysano ugu dambeyn inaan ka adkaano. dabcan dhinaca kalena waxaan rabnaa inaan wadnaa wacyigelin
dadkeena garaadkooda iyo fahamkooda ku saabsan khatarta arrintan ay leedahay sababtoo ah dadkii maba kala garanayaan qofkii inuu maqaayad fadhiyo laba qofood u sheekeynayo iyo inuu qolkiisa dhex jiifo iyo inuu mujtamac ballaaran iyo ummad ballaaran iyo malaayiin qof uu la hadlayo ma kala garanayo diin ahaan waxaan sida ay leeyihiin iyo dhibaatada iyo dunuubta ka dharanaysa ma garanayo shuruucda waxay ka qabto iyo ciqaabta uu ku mutaysan karo ma garanayo marka wacyigelintaasna waa rabnaa inaan xoogga saarno baraha iyo shuruucdooda inaan adkayno waa rabnaa sidoo kaleetana in la ciqaabo oo tallaabooyin laga qaado dadka waxaas caadaysta iyadana waa rabnaa insha allah sidoo kale waxaa jira eedeymo la xiriira in dowladda ay xirto akoonada ay isticmaalaan dadka ka aragti duwan taasoo kaleeto maxaa ugu jawaabi lahayd farxii taasi ma jirto wax raadla maaha dalkaani shuruuc buu leeyahay damaanad qaadayso xorriyatul qowlka oo dastuurka kasoo bilowda iyo shareecada islaamka iyo waxa la wixii shuruuciga kale aan ka samaysanay labo casrigan 21aad ee la joogo dad in la afqabto oo dad la caburiyaahay cidda ku fakartaahay si sax uma aanay fakarin wax suurtagal ah oo la samayn kara ma aha dowladda Soomaaliyeed ee maanta jirta ahina baahidaas maba qabto muxuu ahaa waxaan anaga u baahan inaan dadkeena aragtidooda viewgooda maqalno marka warkaasi waa war iska been abuur oo dacaayad ah dowladda federaalka see uga warqabtaa abka Meto ama Facebook oo kale xayeysiimaha laga sameeyaa in wadamada qaarna waxay ka qaadaan canshuur taasoo kale ma ka warqabtaan xiriir ma la leedihiin xiriir wanaagsan aan leenahay dhammaantood platformyada si wanaagsan aan u wada shaqaynaa dabcan arrimaha ku saabsan canshuuraha iyo muxuu ahaa xayeysiimaha iyo waxyaabaha la xiriira iyo dadka dhalinyarada badan oo Soomaaliyeed oo ka shaqaysta waa ka warhaynaa waxyaabo waxaa jira wali muxuu ahaa aan gudaha wadanka laga sameeyay oo ay ka mid tahay arrintaas xayeysiimaha oo ay ka mid tahay dadka dhaqaalaha ka sameeya wada hadallo noo socda ayaa jira annaga iyo Meta dabcan dawladdu waxa ka go'an inay dhiiri geliso dadka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya oo fursad shaqo helaya inaan caqabad u dhigno ma rabno inaan waxaan rabnaa ku dhiiri gelino suuq weyn waaya hadda ama Meta ha ahaato ama YouTube ha ahaato ama adeegyada kale muxuu ahaa social media ha ahaatee dhammaantood hadda waa suuq dad badan baa ka ganacsada dad badan baa muxuu ahaa aragtidooda ku gudbiya dad badan baa dhaqaale ka sameeya ma rabna dadkeena inaan caqabad u dhigno sidaas oo kale haddana waxaan rabnaa inaan shuruucda wadankeena waafajino arrintaas aad iyo aad u mahadsan tahay wasiir waa ku mahadsan tahay waqtiga bilan aad siisay guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wareysigeena maanta aan la yeelanayno wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Shaqal Cadaala